sharafta leh waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ka soo diyaarinay saylada xoolaha lagu kala gatay ee magaalada Boorama kaasi oo baryahan suuqeedu uu yahay mid aad u shaqeeya waxaan halkaasi ku wareysanay ganacsatada xoolaha iyagu markaasi dhoofiya ee u iibgeeya wadamada khaliijka dilaalinta iyo qaar kale oo kamid ah dadka shaqaalaha ee iyagu xoolahaas ka ganacsada bismillahir rahmaanir rahiim محمد عمر راقي waxaan ka mid ahay ganacsatada reer Boorama arigaas oo xoreyna arkayso waxaan u direynaa mataqaanaa Saudi Arabia Yaman iyo direynaa qiimaha neefka wanka ama orgiga imsaad ku iibsataan $50 laashan iyo afartan marka kolka ilaa berbere laga dhoofiyo ilaa Sacuudiga ama Yaman intuu ku qaadan qiimihiisa wuxuu nagu qaataa ilaa 60 iyo 5 ilaa 60 iyo 7 marka hadda tani ma qaybtii u dambeysay inta xajka ka horeysa dhoofisaanba waan dhoofinayna weeyaan waa qaybtii u dambeeyay baxayeen maxamed waxaan ku weydiiyay geela iyo looda iyaga imsa la siiyaa geela iyo looda waxa la siiyaa looda waxa la siiyaa 700 riyaal ilaa 12 riyaal dida waaweyn ta dhaxay 8 ilaa 7 ilaa 6 oo horey baa la siiyaa geela waa si qiimo weeyaan imka geela awrkooyo waxaan siinaa imka 15 kun lacagta Itoobiya ilaa 14 kun lacagta Itoobiya marka dollar $200 ilaa 850 ayaa siisan محمد waxaad ka mid tahay ganacsatada xoolaha Soomaa adoo ma arigaad ka ganacsataa mise looda iyo ano arigan ka ganacsada waan gartay imisa la siiyaa xoolahaas neefka ugu dheer ilaa 900 birta Itoobiya ku yimid ilaa 900 bir bay naga siiyaa dollar marka loo bedelana dollar marka loo bedelo waxay noqonaysaa ilaa $60 oo dhow neefkaas noqonaya ilaa 550 meelaha cashuurta halkan dawladda oo sidan kaga qaadana intuu leeyahay 1200 shilin bay naga qaadaa 1200 shilin marka maxaa xashiiska meesha yaalana waa adiga arkay xashiiska maxaa looga nadiifin way xashiiskaas meesha saylid wallahi ana naxidaan way ban qabsadaan dadka xashiiska meesha yaala waa adiga arkay waan ka hadalayn badan waba kama qabtaan nadiif Yusuf Cilmi oo geela imsa la siistaa awrta la doofinayo waxa la siistaa 15 kun oo bir balas marka dollar loo bedelana dollar waxay noqonaysaa 890 dollar binoos marka hadda bariyaan ma jistaagay geeli la dhoofinay mise wali waa socda in adigu week buu moogtay daaqaya moogtay week baan laga soo daaqaya moogtay marka berbera laga dhoofinaya geelaas annagu ma Djibouti laga dhoofinay laakiin berberana waa la sii lugaysiin waa la sii lugaysiin marka imsa maalmood sii lugayn ilaa Djibouti waa sii lugaya afar habeen afar ma xoogiisi marka wax badan ka dhacaynin may kama dhacayaan geel waxba kama dhacaan marka ilaa Djibouti marka uu tago imisoo qiimihiisa uu soo noqono cashuurta laga qaadiyay wixii oo dhan adigu dekoleeto waxa la isku dacalna oo neef qaali ah iyo ku madaxada iyo la isku daraya mugta saas wax laga helayaa mugta Xasan Ciise shabakada wararka Sir News Boorama